ku socoto shirkadaha bixiya adeega korontada ee ka howlgala magaalada Muqdisho og agaasimaha waaxda korontada ee solarka dawladda hoose ee Xamar garyaqaanka maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose ee Xamar agaasimaha guud ee howlaha guud xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ujeedo mideynta shirkadaha korontada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciga korontada dalka ee number 2 soona baxay 8 Maars 2023 markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soona baxay 12 bisha 2 sanadkii 1980 markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee number 116 soona baxay 6 bisha 8 2013 markuu tixgeliyay marxaladda ay ku sugan tahay korontada magaalada Muqdisho oo hadii aan si degdeg ah wax loogu qabanin ka dhalan karta halis dhanka badqabka bulshada markuu garwaaqsaday waajibaadka shaqo ee maamulka ee dhanka badqabka bulshada wuxuu soo saaray go'aankan qodobka koowaad laga bilaabo maalinta go'aankan la saxiixo waxaa la mideeyay wada shaqeynta shirkadaha bixiya adeega korontada ee ka howlgala magaalada Muqdisho qodobka labaad sida ku cad qodobka 9aad farqadiisa 13aad ee sharciga number 6 soona baxay 12 bisha 2 ee sanadkii 1980 ee lagu maamulo gobolada iyo degmooyinka dalka waxa waajibaadka dawladda hoose ka mid ah dhismaha iyo horumarinta howlaha korontada magaalooyinka sidaas daraadeed maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar iyagoo waajibaadkaasi fulinaya waxa la farayaa shirkadaha korontada ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho inay mideeyaan shaqooyinka adeega korontada ay qabtaan qodobka 3 si waafaqsan qodobka 64aad sharciga number 2 soona baxay 8 bisha 3 2023 iyo qodobka 15aad ee sharciga number 116 soona baxay 6 bisha 8 2013 dhammaan howlaha laga fulinayo goobaha korontada waa in loo sameeyaa qaab lagu yareynayo khataraha korontada badqabka shaqaalaha korontada iyo dadweynaha adeeg bixiyaasha korontada waa inay qaadaan dhammaan talaabooyinka macquulka ah ee lagu ilaalinayo hantida shacabka shirkadaha korontada waxaa la farayaa in shilalka waaweyn ee saameynta ku leh caafimaadka iyo badqabka dadweynaha ama hantida guud iyo tan gaarka ah in ay ku soo wargeliyaan maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar qodobka 4aad dhameystirka wixii ka dhiman xeerkan fulintiisa waxa uu xil saaran waaxda korontada iyo solarka iyo qaybta howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar qodobka 5aad xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale uu saxiixay maasanidii